ismaaciil danan waa inankiinii waa fanaankiinii wuxuu idinka baahan yahay inaad u ducaysaan oo aad ilaahay u baridaan inuu ilaahay ismaaciil ka soo saaro gacantaasi uu ku jiro waxaa jira fanaaniin ka soo jeeda magaalada Boorama oo ku nool dalka Mareykanka fanaaniintaasi ma u tageen ismaaciil من نلاصو حريرين إذا كقوسيان مدام فنانين تاسي أي كسر جدا مقالة بورما. وفنان صوماليات أمضى الصوماليات نفنان بوي هاي. إن فنان كو سيدي دبا مقرصومه. وحها قف براه بالشدة كترة مقرصومي كريو. واحد سيدي أفرتك ساعة جدا بيسي وين براه بالشدة لو قف فاقدة يعرنتها كوسابسان فنان كصوماليات إسماعيل محمد برخد إسماعيل دان كاسو مدينك جدا بيكوحنا dalka Mareykanka hadaba xaaladda guud ee fanaankaasi aan ugu kurgalno waxaan u soo booqnay hoyga magaalada Boorama ee ka degan tahay ayaan Maxamed Barqad oo walaalihiin Ismaaciil Danan waxaana nooga warbixisay xaaladda guud ee ku sugan yahay fanaanka Soomaaliyeed ee Ismaaciil Danan Ismaaciil Maxamed Barqad Ismaaciil Danan in hawshiisu ma aha mid imika bilaabantay waxay socotaa muddo sanad iyo 3 bilooda hase yeeshee hees imika u qaaday Mukhtaar Daawus ayaa waxay noqotay mid gilgishay dhammaan qulubta ummadda Soomaaliyeed soona kicisay hawsha imika taagan ee baraha bulshada qof walba halkuu doonay uu rabo inuu ka galo dad waxaad moodaa in ay kicisay Soomaalinimadu oo ay iyagu rabaan inay arrinta Ismaaciil ka gungaaraan dadna waxaad moodaa inuu hunguri u galay oo baraha bulshada noloshoodiiba ay ku xiran tahay oo qolada youtuberada iyo cida tiktokerada iyo waxaas isticmaala dadna waa dad damiirkoodii u adkeysan waayay oo Soomaalinimo ugu adkeysan waayay arrinta Ismaaciil ee soo jiidantay sanad iyo 3 bilood socota hadaba Ismaaciil Maxamed Barqad Ismaaciil Danan waa fanaankiinii waa fanaan Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa muddo 8 sano ah wadanka Sweden after 8 sano kadib Ismaaciil wuxuu u hayaamay wadanka Mareykanka isagoo markaa ahaan ka raadsanaya sharci bacdamaaba uu 8 sanadood ee uu joogay dalka Sweden una wax sharciye lahayn Mareykanka markuu galay qeyrkiibu wax la qabay wuxuu ka gudbay dalka Mexico Janice bay hayd markaa ahaan soo baxay Soomaali oo dhan qof walba oo meel ku cadilnaana uu isku dayay inuu ka faa'iideysto Janiska Ismaaciil markuu tagay wadanka Mareykanka ee uu ka gudbay xuduudii Mexico waxa qabatay ilaalada Mareykanka ee xuduudaha kadib waxa lagu xiray gobol la yiraahdo Luciano after 3 days marka ay dadku ku jiraan goobta ay ku xidhan yihiin immigrationka waxay wacdaan qof walba adresska u haysto iyo qofka uu rabo inuu ku dago dan Ismaaciil hawshiisu waxay ka bilaabantay inuu adresska dadkii uu ku ahaa ay iyagu cadaadiyaan oo ay halkaas soo gaarsiiyaan oo ay teleefanadii iyo waxyaabihii uu kula xidhiidhayay oo dhan ay ka qaban waayaan taasi waxay sababtay Ismaaciil halka imika uu taagan yahay inuu joogo hase yeeshee annagu waxaan u aragnaa qadarka Ilaahay hawshan inay ku socoto wixii Ilaahay keenana mar leebaba lagama gudbi karo Ilaahay hawsha dhameystiran mooyaan markaa bahda warbaahintu waxa igu soo booqateen ina ogaataan in xogta dhabta ah ee Ismaaciil Danan bacdamaaba dadka Soomaalidu qof walba dhinac ula kacay hawshii laba baan u kala qaaday anigu markaan arkay social media labadaan u kala qaaday waxa weeyaan inay dad yihiin dad hungurigoogiiba u galay inuu faaleeyo arrinta Ismaaciil dadna waxaan u qaaday dad igu sawir leeyahay iyagoo aan xog bahayn oo Ismaaciil arrintiisaba aan hayn iskaga soo dhaxdhacayo oo ummadda Soomaaliyeed isku tusaya si ay u sheegaan xog aan jirin Ismaaciil la iskaga dhigan dad war waxay afar laatan saac ugu dambeeyay ayaana maadaama fanaankan aad walaatihiin waxa jira fanaaniin ka soo jeeda magaalada Boorama oo ku nool dalka Mareykanka fanaaniintaasi ma u tageen Ismaaciil maxaa man nalaasoo xiriirin idinka qoysahan maadaama fanaaniintaasi ay ka soo jeedaan magaalada Boorama Imraan oo aad baad u mahadsantahay walaal
way jiraan fanaaniin la hayba ama gobolku ka soo jeeda degan wadanka Mareykanka hase yeeshee ma jiro qof anaga nala soo xiriiray ma jiro qof aan oran karo waa fanaan oo arinta Ismaaciil buu meel ka galay ma garanayo waxaan ka ahayn inaan social media ka arko iyagoo ka jawaabaya xataa dadka gacanta ku haya hawsha Ismaaciil markaan weydiiyo ima sheegaan inay xataa xidid la leeyihiin Ismaaciil fanaan buu ahaa fanaan international wahaa wuxuu ahaa musician wuxuu ahaa in yar oo dhalinyaro ah oo fankiisa kor u qaaday isagoo aanay cidina taageeraynin Ismaaciil wuxuu ahaa nin dhaqaale haysta isku filan meel wax dhigtay anigu ayaan ahaan ma qabo inay jiraan dad Ismaaciil dhaqaale ku caawiyay hadii ay jiraan dad iyagu dhaqaale urursaday oo iyagu haysta hadii jiraan Ismaaciil waxaan leeyahay dhaqaale uma baahnayn laakiin wuxuu u baahnaa in la taageero in waqti la geliyo in looyaradiisa iyo dadkiisa lala xiriiro oo aan helno dad wanaagsan oo looyaro wanaagsan u qabta oo dhaqaalaha uu rabo looyarku anaga iyo looyarkan xidhiidhsiya anagana dhaqaalaha u dirsanayna hadiyo gooraalaba wixii kasto loo baahdo anaga u dirsanayna Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeedna fanaan buu yahay fanaanku sideedaba ma qarsoomo wuxuu ahaa qof baraha bulshada ku jira ma qarsoomi karayo taasi waxay qasab ku tahay inuu sheego runta Ismaaciil markuu Sweden tagay run buu sheegay fanka bartu ka soo bilaabay buu sheegay magaalada Boorame ee imika joogno inuu ka tagay buu sheegay waxa u sababa wax weeyaan inuu ku jiro social media oo la ogaanayo waxaadna moodaa sideedaba Soomaalidu inay hadiyo goraanistaba guraan oo ay is soo qarxiyaan oo ay isku diraan oo ay gaaladu ma taqaana Soomaalida laakiin iyaga Soomaalidu isfara oo hadiyo goraale banaanka iskeena marka Ismaaciil inuu Sweden ka yimi marka laga yimaado inuu Soomaaliya ka yimi wuxuu sheegtay inuu Sweden ka yimi wuxuu sheegtay inuu fanaan yahay wuxuu sheegtay inuu YouTube-ka u leeyahay isagu wax walba la soo hordhigayna waxba marka hore ma diidin ugu horeyn markaad gasho wadanka Mareykanka qolada immigration-ka ee ku qabataa waxay weydiinaysaa marka laga yimaado magacaaga saddexan in lagu weydiiyo halkaad ka timi qabiilkaaga iyo muxuu haayay waxaad adigu tahay marka uu ku qasbay yahay inuu sheego runtana kulliba dadka Ilaahay baa ku jecel marka waan ku bogaadinayaa anigu inuu runta sheego waayo maxay haytay Ilaahay wax ka weyn oo jira ma jiro Ilaahay baa na taageeraya runtuna waa wax wanaagsan hadhow toole wixii ka daba imanayo baa xun walaal marka hore looyaradii aanu qabanaynay anagu ma joogno wadanka dadka jooga wadanka Mareykanka jooga ee aanu la xiriirnay ee aanu rabnay inay hawsha iyagu gacanta nala qabtaan waxay noqdeen horta dad wanaagsan iyo dad xun intaba dadku way leeyihiin markii ugu horeysay waxaanu bilownay inaan degdeg lawyer ugu qabano muddo 3 bilood ah gudahood waxaanu rabnay inaan lawyer u qabno lawyerkii aanu qabanaynay waxa jira niman lacagihii lawyerka loo diray lawyerka ugu qabta leeyri Ismaaciil iyagu cunay waxa jirta niman yiri lawyerkii laftirkiisii baa naga baxsaday markay lacagtii ay qaateen waxa jira dad iyagu lawyer qabtay oo lawyerkoodii shaqeeyay oo muxuu ahaayay sameeyay waxyaabo badan Ismaaciil kiiskiisu marka hore wuxuu ku bilaabmay bacdamaaba uu Ismaaciil ka tagay Sweden sheegashada xaqiiqada dhabta ah ayuu ka bilaabmay islaam baa qabatay xaakin ah oo maxkamadda waqtiga ee kiiskiisa Ismaaciil gacanta ku haysay waxay qabatay kiiska Ismaaciil waxaanay markiiba ka soo horjeesatay Ismaaciil hadii uu Yurub ka soo galay inaanu bilaa sharci ahayn kadib kiiskiisa si toos ah ugu fadhiisatay islaantaasi marka lawyerkii dhexe laba lawyer marka laga yimaado hadda lawyerka u shaqeynaya waa lawyerkii shanaad Ismaaciil lawyerka afraad ayaa wuxuu sameeyay wuxuu u xareeyay ambiilkii wuxuu u xareeyay TBS muxuu hayo wuxuuna u raacay maxkamadda kiiskaas haddana waxa isku qabsaday inamadii gacanta ku hayay marka ahaan ayaa isku qabsaday ee Soomaalida ahaa ee anagu aanu dhiibanay ee qaar kamid ahaayeen inamada familka isla imika ahaan waanu ka wareejinay Ismaaciilna jeelkii uu ka wareegay wuxuu hadda ku xiran yahay Seattle Washington kiiska imika waxa si toos ah gacanta ugu haya gabadh la yiraahdo Ilaahay raaliha ka noqday
walaal aad iigu qaaliya ifraax ibraahim magan iyo xasan ciise labada shakhsi ayaa dhiigooda cas iyo dhiigooda cad intaba u shubay ismaaciilna hawshiisa gacanta ku haya insha Allah waxaan rajaynaynaa looyarka imika loo qabto inuu yahay looyar daacad ah dad daacadihina ay hayaan waxaan rajaynaynaa dhawaan hadii ilaahayda inuu ismaaciil xuriyadiisa helo banaanka u soo baxo waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka MMTV Boorama